aniga hooyaday hooyadii aniga waa habar yoonis ee ka taawariyo hooyada ismaaciil arre daawadayaal ninkii dhowaan dhaqan xumada miidiyaha ka sameynaya isaga ee gabadha uu yidhi waan qabaa ayaa Soomaalidu dhibaato weyn ayay qabtay oo xag qabiil iyo xag kalabe waxay soo fadhiiseen miidiyaha isagoo markaasi ku andacoonaya ay gabadhuna ku andacoonaysa inay barnaamijkii ay wadeen ahayd barnaamij in ay caan noqdaan rabaan waxaa la soo geliyey suuq iyagoo markaasi dadka Soomaaliyeed kale loo weydiinayo in ay lacag markaasi siiyaan ay ku furtaan ganacsi wax la mid ah haddaba arrintaga yaabisa ayaa waxay ahayd inuu ninkani sheegay inuu Soomaaliba ahayn balse ay dhashay haweeney Isaaqa waa sida uu isagu sheegay waxaana laga qaaday waraysi kooban oo lagu weydiinay cidda uu yahay sidaas la mid ah waxa uu sheegay inuu ka yimi dalka Masar sidaasna uu ku yimi magaalada Muqdisho dhaxal iyo wax la midana oo aabihii uu waxyaabo noocaas ah waraysi kooban ayaa laga qaaday oo Demesh Media-na waa iska meel fooda ah oo qofkii maalmahaas ay u shidan tahayba waxaa la rabaa in la ogaado bal cidda uu yahay qabiilkiisa iyo wax walba gabadhii ayaa waxay sheegtay in baktigu markaasi xalaal u yahay oo aysan waxba islahayn waxayna tiri wixii aad awoodaan in aad markaasi balisiisaan ujeedada ugu weyn aan isku dildilinay ama aan isku caaynay live dhexdiisana ay ahayd in aan lacag helno fees badanna aan helno bal muuqaalka ay ku sheegayaan qabaa'ilkooda cidda ay yihiin ila daawo aniga hooyadii aniga waa habar yoonis ee ka taawariyo hooyada ismaaciil arre ما شاء الله اسماعيل عبد الرحمن طور اجي استوي اوكي يا صعب لا يا باص يا صعب لا وايه ما شاء الله ما شاء الله وايه marka xamar timid maadaama aan qadar ku kortay dadka kala aqoon marka xamar timid say ku soo dhaws xamar maad ku qanacday way kula fiicnayd say xamar maxaa ku aragtay wallahi waxa ku arkay ixtiraam akhlaaqnimo waxyaalo badan baa laga sheekeeni jiray waxa waxba kama arag bulsho aad u fiican ummad aad u fiican dad ku soo dhaweyn dad aan kugu mashquuleen fa alxamdulillah dabatana kadib hada ma qoyska gabadha la diganta ay guriga degan yihiin bas guri gaar ah diganta ha waxa deganay gurigooda la diganta ha okay waxaan rabaa inaan ogaado maadaama aad nin qurbaha ku koray aad tahay ku dhashay aad tahay xamar yimid isaaqatood hawiye ahayn say ku tahay nolosha say ku tahay dhaqaalahaaga suu yahay daayira waxaa ku dartaa wallahi adeer waa iska duruufaysan waxba ma haysto okay runtii haddaa laga hadlo okay waa duruufaysanta waaya maxaad maanta u baahnaa lahayd in lagu siiyo والله هذا waxa jeclaan lahaa yani imkaanigu qolba deganiyay la deganiyay muxuuha xaashiyadeeda muxuuha marwo kawdhe wallahi waxa jecel yani meel iska dego iyo meel yaro ganacsi furtay ganacsi yaro kareeme furatay guriga ku dhex furatay uu socday TikTok marka musalsal yar wax sameynay waa socodsiinay wax yar bana soo gala caana waan ku noqonay TikTok si dhaqso badana meherad yar hadaa furan lahayn amba qol yar magaalada iska degi lahayn waxba ma haysano wallahi waa alxamdulillah okay isku adigu so marwo adijo dhaqaalaha suuya financial kaaga ani horta aabe ano 9 bilood jiro iga tagay aabahay 9 bilood ano jiro iga tagay oo ka dhintay wuu iga tagay bo haye hooyadii ay soo korsatani hooyada waa qolof hooyadii na ceera ya ka tahay hooyada cabsiyo ka tahay hooyada xasaliwa hooyada xasaliwa aabahana xasaliya laakiin shaashii ma wardheera ayadii waxay tahay ayadii aan shaashii abaha ma Ali Yusuf ma soo wardheere may Ali Yusuf waaya waxaan kaa rabaa moogtaa ninkan marka aabaha adoos waxay sheekada marayso sug yaan kaxayn
aabaha wuxuu ka aabaha adiga oo 9 jir oo ka tagay ayada 9 bilood 9 bilood 9 bilood jir adoo ah oo 9 bilood jiro ku dhaha daayro gorma is aragteen aabaha marka ani aabe nolosheeda 2 jeer arkintaan oona aabe 5 sano una qabay ninkan soo kuma siin aabaha yaa kugu dar ninkan telefoona laga wacay xagu jooga aabaha aabe wuxuu joogaa goboladan dhexe Shambalod meel la maxaa la Shalambod Shalambod naag shanshu ku qaba meesha oo dadka cadcad okay adeeryaasha ma ku yimaadaan may okay waaya ma ogtahay ninkan nin marti inuu yahay oo waqooyi ka soo jeeda oo rashi isxaaqa oo aan rabno markuu nala joogo kala maadaama gacal uu nala yahay in la xushmeeyo inaad si fiican ula macaamisho dhaqanka noocaasa moogta oo 500 gaarayso kareena ku sameystay guriga dhexdiisa maadaama oo asaga xamar uu imaaday uu dhaxal soo raadiyay aabiisna uu xanuunsan yahay isbitaal wax uu galay lacag loo soo diri jiray xataa laga goostay oo adana guriga familka hooy ugu la nool yahay adana wixii aan ka cunayno famil korka kama saari kari hooyaa 500 siisay 500 kareem ku sameystay TikTok soo dhigtay wixii ay kala socdaayeen kadib ani asaa waxa sameynay jiliin saafiyo soo helno waa weydii kartaa maalintu isoo doonanaya xataa ma sha Allah $30 ajibkiis ku jirto maanta aan soo doonana meerkayga waxaygo dhan familka bixiyeen daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa Soomaalida dhibaatada ugu weyn ee haysata meediyaha waa arintan oo kale waana wax markaasi in qof kale ama dhalinyaro kale ayaa wax laga yaabaa inay sidan oo kale ay ku daydaan sameeyaan dhaqan xumo iyagoo live-ka dhexdooda isku fulfulaya marka meediyaha hadii yani dadkan oo kale aan loo joojin oo kale waxay sii furaysaa wadooyin aad iyo aad u fulxun oo Soomaalidu si gaar ah TikTok-ta oo meelaha ugu badan ay fidnadoodu ay sii siyaadiso saaxiibada qaaliga waad ku mahadsantiin haddaad soo gaadhay dhamaadka muuqaalka si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh fadlan YouTube-keena Hogol News subscribe noo saar muuqaalkana like ha ka ilaaw fikirkaagana commentiga hoose nagula wadaag Hogol News baahiyaha bulshada